علي مهدي adigoo ah madaxweynaha ku meel gaadhka ee dalka Soomaaliya waxaan jecelahay in aan dhowr su'aalood ku weydiino su'aasha ugu horeysa waxay tahay kulan ay iskugu yimaadaan ururada Soomaaliyeed hadda kadib ummadda Soomaaliyeed uma hanqataagto haddaba kan maanta ma kula tahay mid ummadda Soomaaliyeed ay ku ilowdo ama ay kaga bogsato xanuunkii gaadhay حقيقتي وفن ummadda Soomaaliyeed dhibaato fara badan ay soo martay oo 2 sano qaadatay mar walbana ay rajeynayeen maalinta ka dambaysa inay ka baxaan dhibaatada dadaal fara badan ayaa loo galay in dhibaatadii lagu xalliyo miis korkiis sida aad ka warqabtana waati shir weyn oo ballaaran oo ururada la isku keenay lagu qabtay magaalada madaxda Djibouti isagoo walaalkay Xasan Guuled Abdidoon oo ka geystay gacan walaaltinimo nasiib darasta aad moodo biyadays inay ka timid maantana waxaan qabaa inay tahay jaaniskii ugu dambeeyay ummadda Soomaaliyeed soo food saartay waana rajaynayaa in ay ka soo bixi doonaan fadhiga kan maanta go'aamo dhaxalgala oo ummadda Soomaaliyeed ka badbaadisay dhibaatada ay ku jirto sida go'aan aad iskula gaadhi laadihiin waxa lagu tilmaamay in ay tahay tala jacayl haddaba haddii arrintu cidhiidhi ay gasho adigu Cali Mahdi ahaan ma ku tala jirtaa in aad awoodda ka farabaxdo aad gaadhid bardo haddii ay jirto qof tala jacayl wax ku dhibaateynaya kuma jiro anigu horay ayaan ugu cadeeyay oo aan ku iri haddii ummadda Soomaaliyeed dibka ay ku jirto ay xal u noqon karto inaan anigu ka dego diyaar ayaan u ahay inaan ka dego daqiiqad walba oo lay weydiisto ama aan u arko inay xal u noqonayso ummadayda qabiil waliba urur buu leeyahay oo waliba waa la isasii sarsarifayo qabiil waliba waxa uu yeeshay ururo fara badan kolka haddii taladu ay soo noqoto oo qarannimadii Soomaaliyeed ay soo noqoto qabiil see looga bixi waaqaba arinta waxa jira waa cudur 21 jirsaday oo 21 sano ummadda Soomaaliyeed lagu kala qaybiyay qabiil mana fududa sida looga baxo laakiin waxaan aaminsanahay ummadda Soomaaliyeed ma ahayn dad amaaldhaana haddii ay dhalato dawlad caadila oo ummadda u sinta awoodda iyo maamulka in si sahal ah ay uga gudbi doonaan ayaan aaminsanahay haddii aad heshiis isla gaadhaanba waxa loo arkaa heshiiskaasi inuu waxba ku filayn waayo Soomaaliya imka waxa uu taliya dibjir iyo dad yaryar oo qori caaradii wax ku qabta oo idinku wax talo idinku xidhan baa inaan jirin haddii heshiis gaadhin iyo haddii kalaba arrinta waxaad ka oran lahayd waa run dhibaatooyin fara badan ayaa dhacday waxa hubkii uu gacanta u galay dad wax magarada iyo dhalinyaro aad u da'doodu u yartahay halkaana ay ka dilaacday burcad waxaan se aaminsanahay sida aan adduunkaba ugu qayla qaadnay in ciidamo naloo keeno si nabadda loo dejiyo in annagoo la kaashanayna ciidamada ajnabi ee maanta waddanka ku sugan in guul laga gaari doono ayaan qabaataana arrinta waqooyiga Soomaaliya iyo ku dhawaaqii Jamhuuriyadda Somaliland waxa keentay oo ugu wacnayd idinka oo markii taliskii Siyaad Barre oo hawsha ka farabaxay kolkiiba talada uun ku dhawaaqay oo taladii qaatay arrintaadu maxaad ka oran lahayd taa macnadeedu ma ahayn inaan annagu ku degdegnay hamba aan ula jeedo gaara aan ka lahayn balse waxaan ula jeednay mar haddii dawladdii waddanka ka talinaysay laga eriyay waddanka halkaana oo vacuum ka dhashay in la daboolo muddada gaaban u badhignana si degdega ururada inay ka soo qayb galaan waxaadna ogtihiin in 26 January laga eriyay waddanka ummadana aan ugu baaqnay inay isu yimaadaan bishii February 28 taas waxay ahayd macnadeedu in aan u muujino walaalahayna ama ururada oo dhan in aan ku dhawaaqa dawladdu oo ahayn mid xukun jacayl ama xukun booba balse ay ahayd kaliya inaan daboolno waqtiga yar kolka utuntii iyo xumaantii kala dhex martay ummadaha waqooyiga iyo koonfurta sidee lagu iloobiyo midnimadii ummadda Soomaaliyeed dib loogu dhisi karaa marka ugu horeysa labada ummadood oo ku kala nool waqooyi iyo muxuu ahaa koonfur ma kala gaarin wax dhibaato
labada shacab waa laba shacab oo walaala ah balse waxay wax kala gaareen maamulkii markaa wadanka ka jiray maamul wuxuu haleeyana ma qabo in loo nisbay karo labada shacab waa sidoodii walaaltinimadayna aaminsan yihiin waxaana qabaa dhibaatadii uu geysta maamulku in maanta haddii ilaahay xamdigiis awooddu ay gacanta shacabka ku soo naqatay in si walaaltinimaa looga wada helo wixii hore u hallaabana maanta la saxo oo cali mahdi adu waxaad leedahay arrimihii dhibaatooyinka qabiilka soo dhex maray waa laga baxaya adiga iyo Caydiidba haabta guud isku mid baad tihiin dhibaato fara badan baana ka dhex dhacday kolka ma waa laga bogsan baad leedahay waxaad mara ka tihiin anaga iyo Caydiid waxaan ahayn labada qof oo aad iskaga hor yimid gaar ahaan magaalada Xamar haddana kadib markii loo kala dib qaaday ama aan wada hadalnay in aan ka soo gudubnay inta arinta inteeri badneed oo aan iskaga nimid saasoo kale ayaan aaminsanahay qabiilka iyo waxa maanta loo arkay kala qaybsanaan aad u kala fog inayna saa ahaa doonin oo si sahal loogu gudbayo ayaan aaminsanahay oo ummadii magaalada Xamar oo kale isdooxaysay way ka baxdaad leedahay maanta waxaad aan ku sheegayaa in ay diilo cusub ay ka bilaabatay ummadii shalay qoroga isu sidatana maanta inay isdhax mushaaxayaan isna dhax marayaan si walaaltinimada ay u wada nool yihiin magaalada madaxda Xamar ciidanka faraha badan ee huwantaay iminka la geeyay Soomaaliya adigu ma qabtaa in ay cawaaqib dambe ay ku yeelan doonto qarannimada ummadda Soomaaliyeed anigu taa ma qabo waayo dadka u soo gurmaday ummadda Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay anigu inay gurmadkooda uu yahay samata bixin ummadda Soomaaliyeed iyo sidee loogu soo celiyaa qarannimadii ummadayna waa dhici kartaa waayo dad kala dhaqana ayaan nahay in uu isdiido dhaqanku waa suurtooda oo xoogaa halkaa uu ka yimaado laakiin in ula jeedada weyn ee ay ku yimideen ay tahay inay qarannimadii iyo Soomaaliya inay waxyeeleen inay u yimideen ma qabo ummadda Soomaaliyeed maanta haddii ay iminka soo gaadhay waxa ugu wacan baa la yidhi diinta islaamka oo xukunku waxa uu ka socday xagga iyo masaajidda iyo culimada kolka waxa dadka reer galbeedka inay ka cabsi qabaan in arrin siflabood oo muslimiin ay Soomaaliya ka dhalato oo waxba dhacay baa la yidhi dagaalo iyo dadkaasi oo ishubeeyay Soomaaliya arrinta maxaad ka qabtaado dadka Soomaaliya waa dad muslima oo boqolkiiba boqol muslima aaminsan diintooda aad nuugu dhagan diintooda taa cid ay ka qarsoon tahay ma jirto waana midda kaliya oo aan aad ugu dhaganahay diintayna haddii samatabax ilaa heer oo yimidna waa aaminaanta diinta islaamka waa runtaas laakiin ma qabo in Soomaaliya ay ka dhala doonto dad siflabooda oo ka dhiga doona siyaasad diinta in wadanka ay ka dhala doonaan ma qabo waa jiri karaan laba qofood saddex qofood number yar oo fikradaas ka qaba oo diinta inay ka dhigtaan muxuu ahaa siyaasad ka dhigtaan waa jiraan laakiin ma ahin kuwa ku guulaysan doona oo ma jirto baad leedahay aduu wax faragelin ah oo dibadda laga soo fargeliyay xagga diinta waxaa la hadalhayaa Iiraan shakiyo iyo warar la sheegayo waa jiraa laakiin ma jecli inaan afka ku dhufto wax aan hubin cali mahdi tala ah ama waana ummadda Soomaaliyeed maxaad u fidin lahayd waa mahadsan tahay ummadda Soomaaliyeed waxaan u gudbi lahay dhambaal aan waad ogtihiin ummadda Soomaaliyeed muddo 2 sano ayaa lagu jiray dagaal isgumaad umuladuux maantana waxaa la soo gaaray maalin qof walba oo Soomaaliya ay ogaatay in qoracaaladiis aan waxba lagu gaaraynin waxaan ummadda Soomaaliyeed ka codsanayaa meel kasta ay joogaan in la iloobo waxyaabihii hore u dhacay la xusuusto mustaqbalka iyo wanaaga ummadda Soomaaliyeed cid kastana maanta mas'uul ayuu ka yahay sidii qarannimadii iyo ummadda Soomaaliyeed dib loo isku soo celin lahay waxa xaqiiqo ah oo alla og yahay in qabiil maanta meesha aan joogno oo na dhigay qabiilna aan wax lagu naqan karin qabiilna oo na qaran naga karin saadarteer waxaan ka rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto in si walaaltinimo oo wada jira ay ugu guntaan sidii dib loogu soo celin lahay karaamadii iyo sharaftii ummadda Soomaaliyeed waxaan jeclaan lahay inaan halka ka faa'iideysto oo aan u mahad celiyo walaalkay Xasan Guuleed Abtidoon oo
yacni sida runtaa ummadda Soomaaliyeed ayna iloobi doonin weligood sidii uu iskugu shuqlay amba uu iskugu howlay in ummadda Soomaali karaamadeeda iyo sharafteeda dib loo soo celiyo ummaduna way u xusuusantaa wayna xusuusnaa doontaa haddii Ilaahay asaga iyo dawladda iyo shacabka reer Jabuuti oo dhan aad u mahadsantahay